bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka duhur qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay howlgal ku disho xubno ka tirsan al-shabaab qaramada midoobay oo taageero cusub u ballan qaaday Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland oo cadeeyay mowqifkiisa ku aadan baarlamaanka doorashadii heshiiska ay ka gaareen dagaal culus oo dhaliyay qasaare kala duwan oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo ciidanka dawladda Soomaaliya ee al-shabaab oo dagaal culus u dhex maray iyo faahfaahin ka soo baxaya askari ka tirsan ciidanka dawladda oo Muqdisho ku dilay wada mooto bajaaj Somaliland oo isaga ka dhan ah dawladda Soomaaliya u gudbisay beesha caalamka dagaal culus oo ka dhacay gobolka Galgaduud iyo faahfaahin ka soo baxaya akhbaraadka caalamka aad ku dhageysan doontaan warkeena waxa kamid ah dawladda Iran oo fariin hanjabaad u dirtay dawladda Mareykanka ay baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa warka baxaya radio Afrika idaacada Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacada adeer kale idaacada la dhageysta ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhur isniina taariikhdu ku aadan tahay 22 September 2020 intaad maqasheen waxa ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena imikiyaatana iyagii oo inta ka faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay tuulooyin hoostaga deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegayaa in ay ku soo qabteen qaraxyo al-shabaab ay ku diyaarinayeen duleedka Bariire taliyaha ururka 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa sheegay in howlgalkaas lagu soo qabtay qaraxyo sidoo kalena ay soo saareen qaraxyo ay al-shabaab ku aaseen tuulooyinka hoostaga deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu hadalkiisa intaas ku daray taliyaha in howlgalkan qaraxyada lagu soo qabtay ay ciidanka dawladda Soomaaliya ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo uu sheegay in ay gaarayeen 13 xubnood oo goobta ku sugnaa ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa inta badan howlgal ka fuliya deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose hayeeshee mararka qaarkood weeraro ayay kala kulmaan al-shabaab inta howlgallada ay ku guda jiraan ciidanka dawladda Soomaaliya dhawaanahaanba howlgallo baaxad leh oo qorsheysanaya ciidanka dawladda Soomaaliya waxa ay ka wadeen inta badan degmooyinka iyo deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo mararka qaar ay ka dhacaan falal liddi ku ah amniga iyo weeraro toos ah oo jidgal u badan oo lala beegsado ciidanka dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha Jubbaland ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan doorashadii baarlamaanka la horgeynaya ama heshiiskii ku aadanaa arrimaha doorashooyinka sida warbixinta warkaan uu ku dhameystiray wariyaheena Mubaarak Cabdalla madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay heshiiskii doorasho oo ay Muqdisho ku gaareen madaxweyne Farmaajo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Madow ayaa waxa uu sheegay in go'aanadii ay madaxdu gaareen kaliya uu ahaa heshiis balse aysan ahayn xeer isaga oo u muuqday mid ka jawaabaya hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in heshiiska doorashada la horgeyn doono golaha shacabka sidoo kale Axmed Madow ayaa sheegay in dalka uu ka xiroobi doono in qabiil wax lagu qaybsado sida doorashada xildhibaanada isla markaana loo gudbi doono in hab deegaan wax lagu qaybsado heshiiska siyaasadeed ee gaarnay ma aha xeer waa heshiis siyaasadeed oo aan u aragnay maslaxadu inay ku jirto oo maanta aanaan qaban karaynin doorashada ama madaxweynaha ama aqalada baarlamaanka ama golaha wasiirada lagu fakaraya sidaa in loo qabto oo dan ayna gaarsiisay in iyadana aad ogaataan heshiiskaasi inuuna xeer ahayn inuuna sharci la marinayo ahayn inuu yahay political agreement xalka ugu dambeeyeen isla aragnay oo sidaa yahay kaasna in la fudaydiyo ood ogaataan qodobka saddexaad aan ku soo ururinayo oo ah tiiha in la iska ilaaliyo cidaan waxu qabnaa inayna jirin wiilasheedii iyo gabdhahayagii baa tihiin waan idin soo dhowaynaynaa waxaan ka xoroobi doonaa qabiilka waxaan ka xoroobi doonaa kursiga reer hebel waxaan u noqon doonaa kursi deegaan doorasho leh oo cod iyo qof lagu soo doortay oo Soomaali ay dooratay waxyaalaha aan aad uga 2006 uga biyadiidanaa waxay ahayd jifooyinka qaar ba waxaan isku qabsanay war xildhibaanada ergada kuraastan dooranaysa bal haddii Soomaali ay noqon weydo reer Cumar oo kale iyo reer Nuur iyo reer Naaleey isku daro oo saddexda jifo ee kursigaas wada ergadii ha ka mid noqoto ilaa xaq odayaasha ijaanmay jifo hebel iska leh ergadu jifadaasay noqonaysaa marka ninkii aan kursi meesha ku lahayn macnuhu waxa weeyaan ani cid ugu matashay malaha baarlamaanka soo saas
hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku soo aadaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay dalbadeen in la horkeeno heshiiskii doorasho oo ay gaareen madaxweyne Farmaajo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku dilay wada mooto bajaaj. askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan waxa uu ku dilay mid ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka ee Muqdisho. goobjoogayaal halka ku suganaya waxay noo xaqiijiyeen in dilka darawalka mooto bajaajka oo lagu magacaabi jiray Bilaa Cali Diini uu ka dhacay xaafadda Soonake ee degmada Hodan, isla markaana askariga dilka geystay uu goobta iskaga baxsaday. askariga dilka geystay ayaa la sheegay inuu taagnaa wadada dhinaceeda isla markaana uu ka codsaday in uu hore u qaado bajaajlaha, balse markii ay marayeen xaafadda Soonake ayuu askarigan rasaas ku furay, sidaas ayuuna ku dhintay darawalka mooto bajaajka. warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan sababtuu askarigan u dilay wadaha mooto bajaajka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in askarigan uu ahaa mid isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya. ehelada darawalka mooto bajaajlaha ee la dilay ayaa tegay halka uu dilku ka dhacay iyaga oo goobta ka qaaday meydka marxuumka, kaas oo la geeyay qaybta meydka isbitaalka Madiine ee Muqdisho. dadka deegaanka ayaa waxay noo sheegeen in uu ahaa darawalka la dilay aabba leh 2 xaas, sidoo kalena ka sokow ku shaqaysta mooto bajaajka gelinka dambe ee maalintii goob dukaan ah oo ku taala isla xaafadda lagu dilay. inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sidaan oo kale waxay Muqdisho marar badan ugu dileen wadayaal mooto bajaaj kuwaas oo siyaabo kala duwan dilalkooda ay u dhaceen. maamulka Soomaaliland ayaa istaka ka dhana dowladda Soomaaliya u gudbiyay beesha caalamka, sida warbixinta warkaan ay ku dhameystirayso wariyaheena Saarakiin Cabdullaahi. Somaliland ayaa sheegtay inay wax shaqo ah ku lahayn nidaamka doorashooyinka Soomaaliya iyagoo soo saaray ashtako ka dhan ah dowladda federaalka loola diray beesha caalamka. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo la ogeysiiyay qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub iyo guud ahaan beesha caalamka ayaa waxaa la sheegay inay Somaliland aysan wax shaqo ah ku lahayn nidaamka doorashooyinka Soomaaliya. Somaliland oo aaminsan inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa lagu sheegay in 30 sano kadib Somaliland ay tahay dal xur ah oo nidaam iyo doorasho iyo dimuqraadi leh. sidoo kalena Somaliland ayaa waxay sheegtay inay ku baaqayso shacabka ku nool deegaanada Somaliland inay ka fiijignaadaan cid kasta oo cadow ku ah isla markaana hal meel ay ka soo wada jeestaan. warkan oo ka soo baxay Somaliland ayaa ku soo aadaya xilli ay galayso Soomaaliya doorasho isla markaana xubnaha baarlamaanka labada aqal ku metelaya Somaliland oo lagu dooranayo magaalada Muqdisho. dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Jubbada Hoose iyadoo faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan qasaare kala duwan oo dagaalka ka dhashay, sida warbixinta warkaan uu ku dhameystiray wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cabduqaadir. dagaalkan ayaa waxa uu dhexmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka AMISOM iyo kuwa daraabiishta Jubbaland oo isku dhinac ah, waxa uu markaa ka dhacay deegaanka Qooqaani oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ee deegaanka Qooqaani, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo geystay qasaaro kala duwan. dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, aysan markaa cadeyn karin qasaaraha ka dhashay maadaama ay ahayd xilli habeen ah, badi dadkana ay wada jiifeen. saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii ugu yimid dhinaca ururka Al-Shabaab isla markaana ay qasaaro markaa ku gaarsiiyeen. wararkii ugu dambeeyay ee saaki markaa aan ka helayno deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigoodu weerar lagu qaaday. faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay gobolka Galgaduud, sida warbixinta warkaan uu mar kale ku dhameystiraya wariyaheena Mubaarak Cabdalla. waxaa deegaanka Mirdugul oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb uu dagaal culus ku dhexmaray ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab kaas oo geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamo ka tirsan guutada 15aad qaybta 21aad ee ka howlgashay deegaanada Galmudug ay weerar ku qaadeen bariga deegaanka Mirdugul, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana dagaalkaas ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. qasaaraha ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ee ka dhashay dagaalkaas ka dhacay deegaanka Mirdugul
duleedka dhuusamareeb ayaa waxa uu yahay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda kaas oo lagu magacaabi jiray cabdi cali hore halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan guutada 15aad qaybta 12aad ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay la wareegeen fariisin al-shabaab ay ku lahaayeen halkaas sidoo kale ay ku sii siqayaan deegaano kale waxa ay sheegeen in weli howlgalka uu socdo islamarkaana ay wadayaan ilaa iyo inta deegaanadaas ay ka saarayaan al-shabaab. qaramada midoobay ayaa taageero cusub u ballan qaaday dowladda Soomaaliya. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulan dhinacyo badan taabanaya waxa uu la yeeshay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed. kulankan ayaa arrimaha looga wada hadlay waxaa kamid ah isku duwidda taageerada saaxiibtinimo ee Soomaaliya, iskaashiga dhanka ammaanka iyo sidoo kale qorshaha ammaanka ee doorashooyinka soo socda ee la filayo dalka inuu galo 2020-2021. wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswam ayaa ballan qaaday in ay taageero hor la siin doonaan Soomaaliya, gaar ahaan booliska dowladda Soomaaliya oo kaalin muuqata ka qaatay amniga Soomaaliya. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed ayaa dhankiisa uga mahad celiyay hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay taageerada had iyo jeer ay siiyaan Soomaaliya. hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay ayaa waxay Soomaaliya siiyaan taageero kala duwan sida dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimo la xiriira caawinta dadka barakacyaasha ah ee Soomaaliya. halka warkaasi duurdhagaysiyaal kaga imaanaya waa warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho imikii haatan akhbaraadka caalamka. dowladda Iiraan ayaa fariin hanjabaad u dirtay dhigeeda Mareykanka. madaxweynaha waddanka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu wajahayo guuldarrooyin kadib tallaabadii Mareykanka uu ku doonayay in cunaqabateynta qaramada midoobay dib loogu soo rogo dalka Iiraan xilli wadamada reer Yurub ay ku tilmaameen arrintaasi tallaabo aan sharciga waafaqsaneyn. xilli uu khudbad ka jeedinayay telefishinka qaranka waddanka Iiraan, madaxweyne Ruuxaani wuxuu sheegay in Iiraan ay jawaab wax burburin doonto ay ka bixin doonto hanjabaadda Mareykanka ee ku aadan in cunaqabateyn lagu soo rogi doono Iiraan mar kaleeto. maamulka uu hogaaminaya Trump waxa uu ku doodayaa in tallaabada cunaqabateynta dib loogu soo rogi doono dalka Iiraan ayna ku qoran tahay heshiiskii uu Mareykanku ka baxay sanadii 2018 ee ku saabsanaa barnaamijka nuclear-ka. wadamada kale ah UK, Faransiiska iyo Jarmalka waxa ay sheegeen in Mareykanku uusan lahayn awood uu tallaabadaasi ku qaadi karo. arrinta uu shaaca ka qaaday Mareykanka waxaa ka hor yimaaday dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ma kala cadda waxa ka dhalan karo go'aanada Mareykanka. axadii toddobaadkan saraakiil Amerikaan ah oo aan magacdooda la shaacin oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay sheegeen in laga bilaabo Isniinta xukuumadda Washington ay cunaqabateen ku soo rogi doonto tiro dad ah oo la xiriirinayo barnaamijka nuclear-ka ee dalka Iiraan iyo sidoo kale gantaalada iyo hubka waddanka Iiraan. dhegeystayaal intaasi waxaa ku dhan warkii duurood kala socoteen warbaahinta Afrika ee Muqdisho. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo dhegeysiga warkeena duhur. Africa Radio